maanta waxaa la qabanayaa xaflad lagu xusayo maalinta aragga adduunka oo ku aadan khamiista 2 bishii Oktoobar. muhiimadda la saarayo maanta waxa waaye caafimaadka indhaha iyo sida uu u saameeyo qofka shakhsiga noloshiisa dhanka caafimaadka waxbarashada shaqada ha noqoto iyo tayada noloshooda xataa faqriga iyo yoolal badan oo kala duwan oo horumarineed. waxaan rabaa qof walba oo daawanaya inaan firiin u diro oo ah inaan mar waliba caafimaadka indhahaada la socotid ha noqoto kaada ama familigaada iyo deriska. haddii aan isku aragtid xanuun inuu kugu soo kordho inaad la macaamishid ama la xiriirtid dhakhtarka indhaha oo kugu dhow si loo ogaado aakhirkana loo daaweeyo xanuunkaada. firiinta labaad waxaa rabay inaan u diro siiba dhalinyarada oo aad dareemi kartiin aad u jecel inay isticmaalaan mobilka waa aalad oo nolosha la xiriira siiba waqtiyaashan oo qof walba waa laga maarmaan laakiin waxaa la rabaa in waqtiga la xadido marka aad isticmaalishid 2 saacadood ugu badnaan waa inaad break ka qaadatid si oo indhahaada ay u nastaan qol mugdina ha ku fiirsanin haddii kale asaa nalku noqon kala dhibaa ka soo socda ama ka imaan kala intaas kadibna waxaa leeyahay aad u mahadsantihiin kusoo dhawaada.